diyaar garow heeskaas madaxweynuhu lacag badan ugu bixiyay isagoo la rabo in la duubo waa la duubaya isagoo la rabo in la baahiyo ayaa dagaalkii dhacay sidaasaa fanaaniinta raba in muuqaalkooda duubaa ay ka baqeen ayay ka joogsadeen marka ujeedkan kale ayaa waxaa ninkii doonaya inuu saran haddii kale in lagu dilo u diyaar garow 30 sano kadib maanta dadka go'aankoodina ilaahay ku dharshay Soomaali ma la aqbali karaa ma la hogaami karaa marka ummadii ruuxdiyaa diray haddii alla kuroya ma shabaab aad iska fiirisaa mise waxaad iska fiiridaa ciidankii amnigaaga iyo naftaada aad ku halaynaysa bal ka warrama ilaahay ku dharshay nin shalay asagoo shabaaba kuu soo hanjabay hadduu kaa hor yimaado asagoo istaaf wato fooneeyo wato laleeyahay waa sarkaal laba sugid dariiqa hadduu kaa hor yimaado sideed noqon leh xaaladdu halkaasay maraysaa waxaan ku talinayaa haddii alla kuroya ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha loo dhiibay hay'adda laba sugid meesha waa lagu aasan yahay si fiican ay isaga safeeyeen fahad keliya maahan ummad badanaa joogtay meesha oo midabyo badan haddii alla kuroya si fiican ha la ysaga fiirsho si fiicanna ha la ysaga kontaroolo intaasna waa ku talinayaa guud ahaanna baaqeennu wuxuu yahay madaxweynaha Soomaaliya muddadiisii waa ay dhammaatay amniga iyo doorashadana meel fagaaraa ayuu ku wareejiyey inuu waa muwaadin inuu tartamo xaq waa uu leeyahay inta laga gaarayo tartanka madaxweynaha ummaddu ha ka nabad gasho ra'iisul